shirkan maanta uu ku qabtay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya xafiiskiisa ayaa waxa uu uga hadlay qodobo badan oo ku saabsan socdaal dhawaan ugu tagay dalka Turkiga. Ku-xigeenka Soomaaliya ayaa qodob u dul istaagay heshiiska ay wada galeen dowladda Turkiga isagoona sheegay in dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya ay sameeyeen laba guddi oo kor u qaada xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya labada dal isagoo sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenku in la dhoofinayo khudaarta ka baxda Soomaaliya oo loo dhoofinayo dalka Turkiga iyo sidoo kale kalluunka oo ay Soomaaliya qani ku tahay waa kan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed oo arrimahaasi ka hadlaya halkii kula wadaagno shirkii muhiimka ah ee aanu tagnay dalka Turkiga ku saabsanaa iskaashiga dhaqaalaha dowladda Soomaaliya iyo Turkiga iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga labadaba shirka oo guulo waaweyn aan la wadaagno bahweynta saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ee la wadaagno ay ka soo hoydeen waxa uu saldhig u ahaa fulinta iyo hirgelinta siyaasadihii lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu gudoominayay dirshe waxay ka hadleen oo rafakureen dhinac walba waxyaabaha aynu iska kaashanayno dalka Turkiga oo dhinacyada beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga qaybo waaweyn oo kamid ah ay biyaha tamarta ganacsiga iyo warshadaha marka waxaanu kala saxeexnay is-afgarad kooda ay dhammaan ilaha dhaqaalaha ee dhinacyada kala duwan tamarta biyaha oo ay ku jirto dhaqaalaha qaybaha ka kooban tahay dalka wax soo saarkiisa iyo kaabayaashiisa dhaqaalaha ee waaweyn waxaanu halkaa ku kala saxeexnay 3 heshiis oo ka koobaad uu yahay ama is-afgarad heshiiska ama is-afgaradka aasaaska guddida iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal محمد عبد العثمان محمد فرد حرنت من الصومالية